ku dhawaaqistii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaali galbeed ee baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida ay ku dhawaaqeen iyo geesinimadii madaxweynihii labaad ee deegaanka Soomara Allah u naxariistay Xasan Jire Qalinle oo xilligaasi ku dhiiraday wax ayna ku dhiiran gadaashii iyo hortiitoona madaxdii deegaanka Soomartay 25 Febraayo sanadkii 1994 waa maalin aan mar hale ilaawi doonin oo ku suntanaan doonta taariikhda deegaanka Soomaalida ama ogaadeenaya baarlamaanka deegaanka Soomaalida oo xilligaasi ka koobnaa 111 xubnood ayaa maalintaasi u fadhiistay inay qaadaan cod afti ayaa ka talineed in deegaanka Soomaalida ka hoos baxo ama ka xoroobay Itoobiya isla markaana lagu dhawaaqo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaali galbeed 108 xubnood oo kamid ahaa 111 xubnood ee baarlamaanka deegaanku ka koobnaa ayaa cod aqlabiyad leh maalintaasi ku ansixiyay in deegaanka Soomaalida uu si rasmi ah uga go'ay Itoobiya sida aan ka soo xiganay Qoraa Cabdiwali Xuseen balse Malaza Zinaawi oo xilligaasi ahaa madaxweyne ku meel gaarka ah Itoobiya waxa uu diiday inuu aqbalo natiijada ka soo baxday baarlamaanka deegaanka Soomaalida oo ay uga tashanayeen aayaha deegaankooda xilligaasina waxa madaxweynaha deegaanka Soomaalida ahaa Allah u naxariistay Xasan Jire Qalinle oo ahaa madaxweynihii labaad ee deegaanka Soomara mujaahid kulama uun gabanin go'aanka ay baarlamaanku gaareen kagana madax banaanayaan Itoobiya balse inta uu qaaday go'aankii baarlamaanka ayaa waxa uu xafiiska ugu geeyay Malaza Zinaawi oo xilligaasi hormuudka xabashida ahaa Malaza Zinaawi oo qaadan waayay go'aankan ay baarlamaanku gaareen iyo sida uu madaxweynaha deegaanku ugu soo dhiiraday inuu keeno afti noocan oo kala ah waxay sababtay in madaxweynaha xilligaas xilka laga tuuro xabsina la galiyo ugu dambeynna naftiisa uu ku waayo waxa la sheegaa guriga ku xidhnaa xilligaasi naag Itoobiyaan oo joogtay inay caano ugu dartay sun saasna uu ku dhintay Allah u naxariistay mujaahid Xasan Jire Qalinle madaxweynihii labaad ee deegaanka Soomaalidu dulucda sheekadeena iyo warbixinteenu waa in ay halyeeyada u dagaalamaya xorriyadda dadkeenu istaba taxan yihiin ilaa iyo Axmed Gurey anigoo Maxamed Ayba ayaa barnaamijkan idin codeeyay fadlan nagu soo biir oo farowna soo dhashay aad ula socoto warbixinna aan bartan ku soo gudbino mahadsanid